Yeah, yeah, yeah. Sarayga Studio. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anigoo ah wariye madax banaan ka howlgala Muqdisho waxaan fursad u helay inaan su'aal ka weydiiyo maareeyo oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland arinta la xiriirta safarka madaxweynaha ee la sheegay in dhawaan uu ku tagi doono magaalada Hargeysa. ugu horreyn mudane maxaad kala socotaa ogaanta adeer anigu wax wara kama hayo safarka la leeyahay madaxweyne Farmaajo ayaa ku tagaya Hargeysa kana hadli maayo laakiin waxaan jecelahay inaan talo halkan uga soo jeediyo shacabka iyo madaxda reer Soomaaliland oo runtii ah meel aan ka soo jeedo wanaagna la jecelahay waxaan kula talinayaa buuqa iska daaya oo la imaada siyaasad iyo talo aad kula jaan qaadi kartaan isbeddelka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ee ka socda geeska Afrika iyo adduunka oo haddii aad ka hadhaan mar dambe meel aad kala qabsataan aydan heli doonin oo markaa mudane ma waxaad leedahay madaxweyne Farmaajo soo dhaweeya oo u ogolaad inuu Hargeysa tago oo adeer maxay bay ku diididee حتى سيدا أي شيئان هذا يقولون دل شارلا مدحوينا دل شارلا سوماليلاند هو سو دوين سيدا يسو دوين لها إن ما أنت هديه وديه لها مدحوين إسماعيل عمر قال له حين ماني سوماليلاند أما هدو ديه لها مدحوين هورو أما مدحوين رئيس الوزراء أبي سيدا سوكلا يسو دوين هدي أي يقولون وحا مدحوين فرماتشو ما أنت سوماليلاند ويهينا سيدا يسو دوين أيام خلاص الله مرة بس سو دوينته ومهم ugu dambeyntii mudan hadii aan ku weydiiyo su'aasheedii ah Soomaaliland 28 sano ayay gooni sutaag marka ku jireen oo ay madax banaani raadinayeen marka maxaad isleedahay way ka wada hadli karaan madaxweynaha haduu halkaasi gaaro adeer wax kasta oo danay ka wada hadli karaan oo ciida ka badan ay ka wada hadli karaan oo iskaga xiran oo aan meel loo dhaafalahay xaqiiqiyan haddii maanta qof madaxa Hargeysa lagu soo dhaweynayo qofkii ugu munaasabsanaa ee wax iskaga xidhnaayeen way sidaad ba sheegtay 28 sano ee Soomaaliland lahayd hal siyaasad oo fadhiida oo marfashiyada looga taliyo ee maskaxdu aanay talinayno madaxdu aanay talinayn mari kasta waxaan meelaha adduunka kula kulmaa madax iyo wasiiro Soomaaliland ka socda waxay ku dhahayaan وأرجنا وح أن كنت هالشنين وحوجا عليه كتير شعب كانوا كعب سنين وحنا الشعب سؤالي هو جانك كوم ديبا سؤالي مدح متي ما ماله يكون عديان باكر سؤالي السياسة ده رك كده يو كنيست بلان A يو B يو C يو دت كان فيوتشر كده إن أطلع سؤالي على جامعه ما دت كان مرفشة ده كقيلة يبعد أياد لا ده سياسة ده وقع بسنة هذا هذا عديان وشعبكم أنتوا تشهدوا عديو oo ku codeeyo weligan sidaan aan ahaan inaa fakarin halkaan ku jirayna cidna ha arkin cidna ha maqlin taas shacabku kuma dhihin baan ku laakiin mas'uuliyadda dayacaysa shacabku dhibaato loo geystay oo aniga laftigaygu aan la qabo madaxweynuhu qiray ayay kooseen ka qabaan laakiin ninkii rogrogi lahaa ninkii wax uga soo saari lahaa ninkii future-kooda iyo dawladnimadooda iyo noloshooda ka talin lahaa sida ay ku wanaagsan tahay waa madaxda Soomaaliland waxaan leeyahay waa inay mas'uuliyadooda qaataan oo dadka Soomaaliyeed hadda halkan imaanaya iyagoo baabaasa oo baasaboor raadinaya oo shahaado raadinaya oo shati ganacsi raadinaya oo fiisa raadinaya xaqiiqdiyaan la dafiri waa in la hadlaa waa in open discussion la furaa runtii anigu labadii professor علي خليفي وأحمد إسماعيل سمعت هو كنت تاجر سنة تبليغ سياسي لكن والله بروباغامي مرفشيدا شيء يا بروباغامي ما ضحدينا ما يدهن والحين اللي نفكر له منه شوقنا داية هذا اللي داي أما دتك وحقلك لبنتي أنت الله يسوق كان الله هو استدي الله تنصر وكذب حين وياه الدون كسياسة دي سويس بدليسة قبل كسياسة دي سويس بدليسة سوماليا هذا الدولة دي حق بين لاذا تلادي قاعدنا يسا هذا تلادي هذا كو كانتو سيداينو uga bixi karna berigii ay jamada ahayn maahan hada ummadii hadii meel lagu quflo oo la dhaho qufulkaas ku jirtaane
dhinacna ha fiirinina oo cidna ha la hadlina oo cidna ha maqlina dhibna ay ku jiraan ummadda waxaa ka madaxda dhibka inay ka saaraan waxay u taagan yihiin ummadda ay matelaan inay dhibka ka saaraan oo kan hadda sheegay ku jiro marka waxaan kula talinayaa war bal fadhiista oo qabyaaladan iyo waxan iyo ishaysigan iyo buuqan iyo madaxyo mijala-aantan iska daayo dadka waxgaradkiisa iyo hoggaankiisa oo madaxweyne muuse biixi ugu horeeyo ha isu yimaadeen ha yidhaahdeen sidaynu soomaaliya oo maanta taladiinni taallo ula macaamilna sidaynu dhibkii ina gaadhay iyo waxa maanta ina hor yaalla isu waafajinaa waa inay yidhaahdaan wey xataa anigu marmarka qaarkood in kastana madaxweyneha arkin marmar aan wasiirada meelaha ku arkay waxaan war haddaydaan wax kale samaynayn wasiirka somalilan wasiirka soomaaliya magacaaba isagu xamar ha yimaado ilaa adduunka dowladda waxaa loo dhisaa structure waafaqsan dhibaatooyinka ku haysta loo dhisaa marka waa inay magacaabaan wasiirka soomaaliya oo xamar imaan kara oo halkan discussion nagula geli kara oo madaxda la kulmi kara oo dadka halkan immigrationka tuban u fududayn kara oo ya waa inay magacaabaan marka anigu waxaan leeyahay war siyaasadda marfashka iyo qaylada iyo dhinacna loo dhaqaaqi maayo iyo waxba maqli mayno iyo waxba arki mayno hadda kadib ma shaqayn karto maskaxa shaqayso waa mahadsantahay su-aal kale ma qaadi karo waa mahadsantahay fadlan shargareeya haddaad shargaraysaan birita cashar fiican baad yeelaysaan hadda shargareeya haddii kale nagala taga wax naga inoo sheegay hadii laga hadda shargareeya kulligii shargareeya hadda hadii laga fidmaayo shargareeya kulligii all of you now ku dhufo badhanka afkayga waan xiranaya aniguna hadii laga fid waxaan meesha soo dhooban ilaa waa been ilaa saaxiib baan kula nahay iyo been or shargaree yalla shargaree